الله الرحمن الرحيم داود الكسو دوادا وركا ايدي هيسو دنوداق ميديا جروب رئيسل وزراء قيرو كورمير ugu tagay guutada 15aad ciidanka xooga dalka ee fadhigoodu yahay Dhuusamareeb Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shalay kormeer ugu tagay ciidamada xooga dalka gaar ahaan guutada 15aad ee ka tirsan taliska qaybta 12aad Soomaaliya guutada 15aad ayaa isugu jiray ciidamadii dhawaan la qarameeyay ee Al-Sunna iyo ciidamadii qaybta 12aad ee horey u joogay magaalada Dhuusamareeb Wasaaraha ayaa ku booriyay ciidamada isku dhafka inay si wada jir ah uga shaqeeyaan sugidda amniga deegaanada Galmudug sidoo kale waxa uu ku booriyay inay isu diyaariyaan howlgallada Al-Shabaab lagu xoreynayo deegaanada ay uga sugan yihiin dowlad-goboleedka Galmudug laga bilaabo waqtigan hadda ah xuquuqdiina waxaad ku leedihiin dawladda federaalka ama mushaar ama caafimaad ama garaam raashin intaba waxa ku leedihiin askar iyo saraakiilba waxa ku leedihiin dawladda federaalka waxaadna ka amar qaadataan dawladda federaalka askar iyo saraakiilba waxaad ka tirsantihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada ayaa amarkiino yaa meesha uu ka baxo wasaaraha ayaa si gaar ah ula dardaarmay taliyaha guutada 15aad Generaal Mas'uud Maxamed Warsame iyo taliyaha intaliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Generaal Yuusuf Maxamed Cabduqaadir Kaanti isaga oo ku adkeeyay inay gutaan mas'uuliyadda ka saaran difaaca dhiigga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada ay u xil saaran yihiin xaradii la dhihi jiray 12aad in ciidamadii 12aad maanta la isugu keenay guutadan la yiraahdo guutada 15aad iyaga iyo kuwa xarada ku jira oo tababarka ku jira oo ah guutada aan rajeynayno hadii Ilaahay yiraahdo inay cadawga ka xoreyso ama khawaarijta gobolada ama degmooyinka Galmudug oo dhan marka ugu horeysa waxaan leeyahay hambalyo ciidamadan kuwa 12aad ka hore iyo kuwa maanta halkan joogaba oo kulligood isku ah 12aad ama guutada 15aad waxay ka diiwaan gasheen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidamadii qaranka kulligood mid ka soo horeeyay ma jiro ciidan hore iyo ciidan dambe ma jiraan waa ciidamadii dawladda federaalka Soomaaliya oo ka shaqeyn doona midnimada qarannimada iyo sugidda amniga gaar ahaan xoreynta goobaha uu cadawga haysto Mudane Xasan Cali Khayre oo sheegay inay muhiimad weyn dawladda u leedahay tayeenta ciidamada iyo qalabeyntooda isagoo ballan qaaday inay si dhaqsi ah loo dhisayo xarunta 12aad iyo in ciidamada loo dhameystiro dhammaan qalabka iyo tababarada ay u baahan yihiin si ay awood buuxda ugu yeeshaan fulinta mas'uuliyadda weyn ay u doorteen waxa kale oo rajeynayaa in aad sida ugu dhaqsaha badan kulligiin idinkoo isku duuban inaad ka shaqeysaan in qof dambo oo khawaarij aan lagu arkin dhulkan hadii Ilaahay yiraahdo wax walba oo garaam ah iyo warqado iyo shaqo waxa la idin soo marsiinayaa taliyihii waa kanaha qaybta 12aad mas'uuliyadda hadda waxa haya waqtigan xaadirka taliye Mas'uud wixii ama awaamiir intaas ka sokeeya waxaad ku shaqeynaysaan amarka idin yimaada laga bilaabo maanta halkan waxaan rabaa inaan ka ballan qaado dawladda federaalku inay ka shaqeyn doonto sida ugu dhaqsaha badan in loo dhisi doono xaradan waana mahadsantiin